daawadayaal sida hadda ka muuqata golihii wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale xaruntii golaha baarlamaanka waxa yimid ciidamada kala duwan ee booliska Soomaaliland kuwaasi oo saacadihii ugu dambeeyay soo gaaray halkan kadib markii uu gacan ka hadal dhaxmaray gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale xubin ka tirsan golaha wakiilada ciidamada booliska ayaa haatan si xoogan waxay u joogaan xarunta waxaana ay diidayaan dhaqdhaqaaqa telefishanka Hon Cable ayaa waxa uu isku dayay inuu ogaado sida wax u dhaceen goob joogayaal ku sugnaa gudaha xarunta baarlamaanka ayaa telefishanka Hon Cable u sharaxay wixii ay arkayeen iyo talaabooyinka uu qaaday xildhibaan Salebaan Cali Koore oo lagu eedeeyay in gacan ka hadal iyo hadallo kulay dhaxmareen gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Baasha Maxamed Faarax oo markaasi ku sugnaa xafiiskiisa waana kan xildhibaan Axmed Maxamed Diiriye Nacnac oo isagu markaasi ku sugnaa gudaha xarunta golaha wakiilada gaar ahaan xafiiska ay wax ka dhaceen gudoomiyaha golaha wakiilada waxaana uu telefishanka Hon Cable u sharaxay wixii goobtaasi ka dhacay ayr wax khayr qabaan ka dhacay meesha saaka markaan ka soo baxay gudoomiyaha Baasha xafiiskiisa ayuu iga horiyay halka markaan marayay waxaan tan cunaa qabtay warfaabayga furfuray xildhibaan waxa ku dilaysaa marka waan yaabnay laba nin baa daba socdo shabaab oo inkay laalay marka nimankaas waxay isteen deegaran maayo warfaamanku kale ayuu Baasha u galay gudoomiyaha xafiiskiisa marka waxa xildhibaan Salebaan Cali Koore marka iyo labadii nin oo daba socda hadaba gudoomiyaha bodyguardkiisa baa joojiyay markii joojiyay maana meel galo de ninkan inuu rasaas dadlayaa buu doonay rasaasta dhacday maxaad ka ogeyd waxaan ka ogaa nimankan isoo dhaafay ayaa xabad riday markii meeshii Islaangal ayaa askari baa joogay de bodyguardka gudoomiyaha kiiba ina soo gala markii soo dhaaf way xabad ku rideen marka xabad kor bay qabatay alxamdulillah waxay cidna ma yeelin markaas ay deenin walba kala yaacay adigu maxaa marka inta kadib waxa yimid ciidamada booliska waxa la leeyahay xildhibaankii iyo staafkiisii ama shaqaalihiisii la socday ee rasaastu ay ka dhacday intiiba way qaadeen adigu indhaga mukarkiisa waa labadii intiiba qaadeen ma nin baa baxsaday labadii nin rasaasi nin baa baxsaday kowde marka isagina waa la kaxeeyay xildhibaankina waa la kaxeeyay askarigina waa la kaxeeyay saas loo kaxeeyay intaas meesha ka dhacday wax kale ka mideen waxaan hadda la kulanay mid kamid ah goob joogayaashii ku sugnaa markii gacan ka hadalku ka dhacay xarunta golaha wakiilada gudaheeda oo markaas ku sugnaa halka ay wax ka dhacayeen waa Maxamed Ibraahim Sagax oo ah wariye madax banaan oo markaas ku sugnaa golaha wakiilada maadaama goobta joogtay sidee wax u dhacay bismillaahir rahmaanir rahiim horta xafiiska Baasha soo galay waa ilaa 10 barkii waana gudoomiyaha golaha wakiilada oo fadhiya xafiiskii gudoomiyihii u bedelay Cabdiraxmaan Ciro markii aan soo galay waxaan arkay in isagoo Baasha xafiiskiisa fadhiya iyo Koore oo meesha taagan oo hadallo kulkul marka ismaan dhaaf u ka dhex taagay isagii Baasha dabeeta xildhibaanada meesha ku sugnaa waxa kamid ahaa oo ka xusuustay Axmed Ducaale iyo Axmed Maxamed Diiriye Nacnac iyo Maxamuud Jaamac Warfaa dabeeta markan xaaladii arkay sida uu arkay hadaladina ka kulkuliyiin oo leeyahay Baashan iga bax golaha leeyahay oo nacnacna marka malaha nacnacna hortaybu malaha cunaha yar qabtaan malaynaya Koore sidoo ii sheegay nacnac ayaan dabeeta markan xaaladii arkay ayaa askarigii Baashay oo isna albaabka taagan xafiiska ayaa soo kaxeeyay oo isna aad u xanaaqsan dabeeta markii aan soo kaxeeyay xaqii albaabka xafiiska dibadii nimid ayaa waxa goobtii yimid darawalka xildhibaan Salebaan Yuusuf Cali Koore oo tawakkal la yiraahdo qaano dabeeta sidaan u taagnayn meesha ayaa waxaan arkay xabad marka adu baaskoolada marka ma arkayeen baaskoolad biis hoos ka soo saar dabeeta way qaraxday Cabdishakuurow dabeeta uu cararay markuu cararay yarkii darawalka xildhibaan Koore askartii baa ka daba tagtay golaha labada askari baa qabtay markuu cararay askartii golaha xoog bay ku qaaday ninkii iyo baaskooladiisii oo ahaa xildhibaan Koore darawalkiisii dabeeta sidii iyadoo xaaladdu tahay ayaa taliyaha biliiska Cabdilaahi Fadal Iimaan iyo ciidan uu wata ayaa goobtii yimid xildhibaan Koore laftiisa waxa wararku sheegayaan in ciidamada boolisku ay isaga meesha ka kaxeeyeen oo ay qaadeen arintaas ma arkaysaa adigu in shaahid baan u ahaa xildhibaan Koore markii darawalkiisii iyo baaskooladiisii la qaaday shaahid waxaan u ahaa xildhibaan Koore isna markii taliyaha biliiska yimid gaari la saarayo sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen goob joogayaashu ciidamada biliisku waxa xabsiga ay dhigeen xildhibaan Salebaan Cali Koore iyo darawalkiisa oo la sheegay rasaas inuu riday waxaana la geeyay xarunta dambi baarista CID-da loo yaqaanay ciidamada biliisku ay leeyihiin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Faratoon ayaa isna xaqiijiyay xariga xildhibaan Koore iyo xubnaha kale lala xidhay niman waxaan la socday xildhibaanba waxa xidhan yihiin labada inta la sheegay arrin aan la yaabay oo ku argagaxay bay runtii noqotay waana khalad hubay rido ha noqoto ama gacan ay qaado ha noqoto
ciddii geysatay khalad bay samaysay. xildhibaan Salebaan Cali Koore oo ah mudanaha arrintani loo xiray ayaa maruu saxaafadda la hadlayay maalintii doorashadu ay ka dhacday golaha wakiilada waxa uu muujiyay inuu ka soo horjeedo gudoomiyaha cusub ee la doortay. taasi ma la oran karayaa gudoomiyaha la doortay kuma qanacsaneed anigu markii horena kuma qanacsanayn haddana kuma qanacsanayn haddana waa ka soo horjeeda. Cabdi Shakuur Dayib Maxamed, Home Cable TV, Hargeysa.